Assalaamu calaykum saaxiibayaal kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta waxaan kusoo bandhigaynaa fursad ganacsi oo aad bil walba ka shaqaysan karto lacag u dhaxaysa $2,000 ilaa $16,000 bil walba adigoo gurigaaga jooga. Barnaamijkan oo aan baaritaan ku haynay 7 bilood ugu dambeysay ayaan soo ogaanay inuu yahay barnaamijka ugu sahlan uguna macquulsan ee aad lacag uga shaqaysan karto adigoo gurigaaga jooga. Haddaba halkee laga shaqaysanayaa, sideese loo shaqaysanayaa? Su'aalahaas iyo su'aalo badan waxaan ka jawaabi doonaa daqiiqadaha soo socda insha Allah. Ugu horreyn waxaan ka jawaabi doonaa su'aasha ah halkee laga shaqaysanayaa. Kambaniga Leaf Good oo ah mid ka mid ah kambaniyaasha ugu waaweyn waddanka Mareykanka ayaa la yimid fikrad cajiib ah taasoo ay ka faa'iideysan karaan dhammaan dadka ku nool caalamka meel kasta oo ay joogaan. Kambanigan oo xaruntiisa ugu weyn ay ku taala waddanka Mareykanka ayaa sidoo kale xarumo ku leh in ka badan 20 waddan oo ay ka mid yihiin Ingiriiska, Faransiiska, Hindiya, China iyo Kenya. Sidoo kale kambanigan waxa uu qorsheynayaa inuu xarumo ka furto wadamo badan oo ay ka mid yihiin Soomaaliya iyo Itoobiya. Madaxda kambanigan oo ah kuwa si weyn looga yaqaan caalamka ayaa si isbuuclaha live u soo gala iyagoo ka warbixiya horumaradii kala duwanaa ee la gaaray isbuucaas iyo sidoo kale faa'iidada ay ka sameeyeen dhammaan xubnaha kambanigan meel walba ay joogaan. Haddaba su'aasha isweydiinaysa waxay tahay maxay tahay fursadan cajiibka ah ee soo bandhigay kambaniga, sideese looga faa'iideysan karaa? Kambanigan 6 qaab oo kala duwan ayaa looga shaqaystaa. Annaga si muuqaalkeenan waxaan ku soo qaadan doonaa labada ugu sahlan oo qof kasta lacag ka sameyn karo waddanka doona ha joogo. Labadan qaab ee aadka u sahlan ayaa kala ah Matrix Commission iyo Matching Bonus. Haddaba maxay yihiin Matching Bonus iyo Matrix Commission? Sideese looga shaqaystaa? Ugu horreyn waxaan faahfaahin ka bixin doonaa qodobka koowaad oo ah Matrix Commission. Matrixku waa qaab ay shirkaddu u nidaamiso dadka cusub ee kambanigan ku soo biira. Tusaale ahaan, haddii aad halkan kambaniga uga soo biirtid, adiga qofkan ayaa kaa sarreeya, sidoo kale adigana intaana qof ayaa ka hooseysa. Qofkan sidoo kale asna intaana qof ayaa ka hooseysa. Qofkan asna intaana qof ayaa hoos timaada. Qofkan sidoo kale asna intaana qof ayaa hoos timaada. Sidoo kalena dadka cusub ee ku soo biiray kambaniga iyagoo dadkan ay hoos imanayaan oo ay ku daba faylayaan. Haddaba su'aasha isweydiinaysa waxay tahay sidee lacagta lagu helayaa? Ugu horreyn, qof kasta oo xubin ka ah kambanigan bil walba wuxuu bixinayaa $10. Qof kastana wuxuu faa'iido ka helayaa dadka isaga ka hooseeya. Tusaale ahaan, haddii aad adiga halkan kambaniga uga jirtid $10 bil walba bixinaysid, qofkan kaa sareeya adiga ayaa qayb laga siinayaa. Sidoo kale qofkan kaa sareeya asna qayb ayaa laga siinayaa. Qofkan kale sidoo kale asna qayb ka soo gaaraysa. Qofkan kale asna sidoo kale qayb ka soo gaaraysa. Adigana waxaad faa'iido ka helaysaa dadka cusub ee ku soo biiraya kambanigan oo dadkaasi adiga ay ka hoos imanayaan. Tusaale ahaan, haddii kambanigan bisha koowaad ay ka hoos imaado adiga 60 qof, 60kaasi qof kasta oo ka mid ah waxaa laga siinayaa $25. Isku dar lacagta soo galaysana waxay noqonaysaa $15. $15kaasi markaad iska bixisid $10 oo kambanigu ka rabay ee bilaha ahaa waxa ku soo haraysa $5. Tusaale ahaan, bisha ku xigta kale dadka haday gaaraan 100 qof, 100kaasi qof waxaa laga siinayaa $25. $25kaasi markaad iska bixisid $10 kambaniga, $15 faa'iido ayaa adiga ku soo haraysa. Bisha ku xigta kale dadka haday gaaraan 200 qof, 200 qof kambanigu wuxuu ka siinayaa $50. $50kaasi markaad iska bixisid $10 kambanigu ka rabay $40 faa'iido ayaa la laabanaysaa. Bisha ku xigta kale dadka haddii ay gaaraan 1000 qof, 1000kaasi qof kambanigu wuxuu ka siinayaa $250. Markaad iska bixisid $10 kambanigu ka rabay $240 lacag ayaa la laabanaysaa. Haddaba faa'iidada bilaha ah mar walba way sii badan doontaa maadaama dadka ku soo biiray kambanigan ay si joogto ah u badanayaan oo bil walba kambanigan waxaa ku soo biirta 100,000 oo qof. 100,000 oo qofna haddii qayb yar aad ka heshid adiga bil walba intaas ayaa ka badan. Haddaba su'aasha isweydiinaysa waxay tahay sideen ku helayaa dadkan hoos imaanaya ee bil walba aan lacagta ka helayo? Dadkan 3 qaab oo kala duwan ayaad ku heli kartaa. Tusaale ahaan, halkan ayaa kambaniga qof uga soo biiray. Qofkaasi 2 qof ayuu kambaniga ku soo daray. Labadaas qof waxay kala ahaayeen adiga iyo qof kaleeto. Isla qofkii adiga ku keenay ayaa markaleeto waxa uu soo helay 4 qof. 4taasi qof ee uu soo helay maadaama labadiisa lugood ugu horeysa ay buuxaan, 2 qof oo ka mid ah adiga ayaa lagu hoos dhigayaa. 2 qof oo kaleetana waxaa loo hoos dhigayaa qofka kaleeto. Labadan qof ee lagu hoos dhigay adiga bil walba waxaad uga xisaabtamaysaa mid walba $25. Sidoo kale qofkii keenay isna bil walba wuxuu uga xisaabtamayaa $25 oo lacagtaasi bilaha ah labadiina waa u simantihiin qofkii keenay iyo adiga. Tusaale ahaan, labadii qof adiga lagu hoos dhigay ayaa mid ka mid ah waxa uu keenay 6 qof, midkii kaleetana waxa uu keenay asna 6 qof. Dadkan ayagu ay keeneen mid walba oo ka mid ah adiga waxaa laga siinayaa $25. Sidoo kale qofka ka sareeya asna wuxuu ka helayaa $25. Sidoo kale dadka aad adigu kambaniga ku soo darto
iyaguna dadkan ayay soo dhexgelayaan oo qof walba aad u akeento asna waxaad ka helaysaa 25 city. halkaas marka waxa kaaga cad in dadkan ku hoos imaanaya aad ku heli karto saddex qaab waxa weeyaan in dadka adiga ka sareeya ay ku soo daraan kambaniga. qaabka labaadna waxa weeye in dadka adiga ka hooseeya ay si farcamaan oo qof kasta oo dadka sii keeno. qaabka saddexaadna waxa weeye inaad adiguna sidoo kale aad dad kambaniga ku soo darto. marka adiga mar walba kuma qasbaneed inaad kambaniga dad ku soo darto oo adiga aan dad keenin oo iska jiifa ay dadka ku badan karaan sidaasna aad lacag ku heli kartaa. haddaba Matrixku waa qaab ay ku kala faa'iideysan karaan dadka kambaniga ku jira. qof kastana waxa faa'iido ka helaya dadka isaga ka hooseeya, isagu ha keeno dadkaas ama yuusan keenin. mar walba waxa weeye bil walba lacag ayuu u xisaabtamayaa. qodobka koowaad oo ah Matrix intaas ayaan ugu gudbaynaa. haddii aad fahantay qodobkaas waxaan kaa codsanaynaa inaad muuqaalka like inoo saarto. markana waxaan u gudgalaynaa qodobkeena labaad oo ah match bonus. haddaba waa maxay match bonus? muxuu uga duwan yahay Matrix? tusaale ahaan qofkaani markii uu kambaniga ku jiray in muddo ah ayuu waxa uu helay 1000 qof, laakiin 1000 qof oo uu helay isagu hal qofna ma uusan keenin. sidoo kale qofkan kale asna markii uu kambaniga ku jiray in muddo ah ayuu waxa uu helay asna 1000 qof, laakiin 1000 qof uu helay qayb kamid ah ayuu isagu keenay. tusaale ahaan kaleeto 20 qof oo kamid ah ayuu isagu keenay ama 50 qof oo kamid ah ayuu isagu keenay. marka labadaani qof maxay ku kala duwan yihiin? qofkaani 1000 qof haysta ee aan hal qofna keenin isaga bisha marka ay dhamaato qof kasta waxa laga siinayaa 25 city. markii 25 city kun lagu dhuftana lacagtu helayo isku dar bishaas waxay noqonaysaa $250. sidoo kale qofkan asna 1000 qof ee hoostaala waxa uu bil walba ka helayaa $250 oo wuxuu kala mid yahay taas qofkii horeeto. waxa kale asaga u dheeri ah dadka isaga uu keenay qof kasta ayba inta uu lacag u helo barkeed ayaa asaga la siinayaa. tusaale ahaan kaleeto haddii qof kamid dadkii uu keenay uu bishaan helo $100, qofkaas $100 waa la siinayaa. sidoo kale qofkan keenay asna waxa la siinayaa $50. haddii tusaale ahaan kaleeto dadka adigu keentay mid kamid ah uu helo $1000, $1000 waa la siinayaa. sidoo kale adigana waxa lagu siinayaa $500 oo ah kala barkeed. marka waxa weeyaan taasi waa faa'iido koowaad oo ah qof kasta oo dadkan keentay kamid ah lacagta uu keeno kala bar ayaa adiga lagu siinayaa. faa'iidada labaad ee qofkan helayo waxay tahay in qof kasta oo diiwaan geliyo uu ka helayo $25. tusaale ahaan kaleeto kambaniga qof kasta marka uu iska diiwaan gelinayo kambaniga wuxuu ka qaadaa $50. $50 25 kamid ah waxa la siiyaa qofkii isaga kambaniga ku soo xiray ayaa la siiyaa. marka qof kasta oo kambaniga ku soo xirtid waxaad ka helaysaa $25. tusaale ahaan haddii bishii aad ku soo xirto kambanigan 40 qof waxaad helaysaa $1000. sidoo kale haddii aad ku soo xirto 100 qof waxaad helaysaa $2500. qofka aad ku soo xirayso kambanigana khasab ma aha inaad istaqaanaan ama aad isku meel joogtaan. qof kasta wadanku doonaa joogo aad ku soo xiri kartaa. kaliya waxaad u baahan tahay qofka inaad ku wargeliso kambanigan iyo qaababka looga shaqeysto, sidoo kalena aad u dirto foomkii uu iska diiwaan gelin lahaa. tusaale ahaan kaleeto haddii isbuucii aad diiwaan gelisid 20 qof isbuuc walba waxaad helaysaa $500. $500na waxaa lagu soo dirayaa marka isbuuca dhimaado oo maalin walba oo khamiis ah ayaa lacagtaasi la helaa. waxaana loo yaqaanaa lacagta isbuuclaha ah oo waxaa lagu siinayaa mar walba isbuucaas wixii aad shaqaysatay oo bisha ma lagugu sugayo. sidoo kaleeto dadka adigu keentay dadka ay sii keenaan iyaguna lacag isbuucla ayaad ka helaysaa. tusaale ahaan kaleeto 20 qof adigu keentay haddii ay sii keenaan 20 qof oo kaleeto waxaa lagu dhufanayaa $5. markii 20 lagu dhuftana waxay noqonaysaa $100. marka $100 ayaa isbuucaasi ku soo dhacaysaa. marka dadka adigu aad qortid iyo dadka adigu aad qortay kuwa ay sii qoraan labadaba waxaad ka helaysaa lacag isbuucla ah oo isbuuc walba waxa ku soo dhacaysa faa'iido joogto ah. waxyaabaha kale ay ku kala duwan yihiin Matrix Commission iyo Match Bonus waxaa kamid ah tusaale ahaan haddii tiraahdo Matrix Commission ayaa lacag ka suganayaa oo shirkaddan waa iska diiwaan gelinayaa wixii dad hoos yimaada ayaana suganayaa. dadka marka ay bataan oo ay bataan bil walba ay sii bataan dadka marka ay gaaraan 8 kun wixii ka badan lagu xisaabtamayo. tusaale ahaan haddii dadka ay gaaraan 10 kun 8 kun oo u horeysa kaliya ayaa lacag laga siinayaa oo bil walba waxaa laga siinayaa 8 kun oo lagu dhuftay 25 city isku darna waxay noqonaysaa lacag gaaraysa $2,000. marka wixii 8 kun ka badan adigu ma leeyahay dadka waday gaaraan tusaale ahaan 20 kun hadii ay gaaraan 20 kun waxa weeye 12 kun ee maaragta dambe adigu ma leeyahay 8 kun oo horeysa kaliya ayaa lagu xisaabinayaa maadaama aad tahay qof shirkadda maaragta kaliya isku soo biiray. laakiin dhanka Match Bonus markii aan nimaano tusaale ahaan haddii qofku yiraahdo shirkaddan waxaan u sameeyaa xayisiin oo dadka maaragta ayaan ku soo xiraya asxaabtooda qaraabada aan ku soo xiraya hadduu yiraahdo qofkaasi waxa weeyaan dadkiisu waxay gaari karaan ilaa iyo 65 kun oo qof ayay gaari karaan. dadkiisu marka ay bataan oo bil walba ay sii bataan asana 65 kun marka dadkiisu ay gaaraan ayaa maaragta laga joojinaya wixii 65 kun ka badan asaga loo xisaabimayo. tusaale ahaan 65 kun haddii loogu dhufto 25 city
bil walba waxaa usoo dhacaysa asna 16,000 oo dollar. Marka waxa weeye darajada ugu sareysa asna uu gaari karo waa 16,000 oo dollar in maaragta usoo dhacda bil walba. marka qodobkan way qodobkan ka hadlayna markii aan dhahaynay shirkaddan waxaad ka helaysaa 2,000 oo dollar ilaa 16,000 oo dollar. 2,000 oo dollar waxaa helaya qofka shirkaddan iska diiwaan geliya laakiin waxa uu aan ka qaban oo intuu is diiwaan geliyo kaliya ka seexdo hawlihiisa kale ka raacda. 16,000 oo dollar waxaa helaya qofka shirkaddan si joogto ah u shaqeysa oo asxaabtiisa iyo qadhaawaysa ku soo xira oo waxa weeye market u sameeya social media ka xayeysiista waxa weeye dad soo xirto team dhista qofkaas isagoo waxa weeye darajooyin badan ayuu gaari karaa oo darajada uu soo gaari karaa waxa weeyaan dadkiisu inay gaaraan 65,000 lacagta bilahan ay gaarto 16,000 ay gaarto. haddaba gabagabada muuqaalkan ayaan soo gaarnay haddii ay rabtid inaad maatarkiis lacag ka samaysid waxaad u baahan tahay kaliya inaad is diiwaan gelisid oo aad iska bixisid 50 dollar oo diiwaan gelin ah sidoo kale bil walba aad iska bixisid 10 dollar oo ah lacagta bilaha ah kadibna aad sugatid inta dadkaaga ay ku badanayaan oo bil walba wixii ku soo dhaca aad la baxdid. sidoo kale haddii aad rabtid inaad lacag ka samaysid margin bonus waxa laga rabaa inaad is diiwaan gelisid oo 50 dollar iska bixisid sidoo kale 10 dollar bil walba iska bixisid sidoo kale aad shirkaddan ku soo xirtid marketing aad samaysid markaas si aad u heshid lacagta bilaha ahayd iyo lacagta isbuuclaha ahayd oo lacag fara badan markaas ay kugu soo dhacaan. ugu dambeyn shirkaddan ayaa noqotay mid ka mid ah shirkadaha lagu hadalhayo inta badan yahay caalamka xilligan la joogo sababaha dadku u hadalhayaan ee dadku u heleen waxa ka mid ah tusaale ahaan 3 qodob ayaa ugu waaweyn. qodobka koowaad oo ah in shirkaddan ay tahay shirkad si xawli ah ku socota oo kariimadeedu si dhaqso ku socdo. qodobka labaad oo ah in shirkaddan ay si sahlan uga shaqeysan karto oo qaab fudud lacag u sameyn karto. iyo qodobka saddexaad oo ah in shirkaddan lacagta aad ka samayso aad la soo bixi karto meel walba oo caalamka joogto si sahlan aad la soo bixi karto. Soomaalida ayaana ka mid ah dadka shirkaddan sida weyn oo lacag qaabka u shaqeyso oo anaga groupkeena oo kaliya hadda waxaa ku jira ilaa 15,000 oo qof 15,000 oo qof waxay ku kala jiraan ilaa dhowr iyo 20 group oo WhatsApp ay ku kala jiraan. maalin walba si joogto ah ayay u soo biiraan dadka Soomaalida shirkaddan oo isbuucii waxa la diiwaan geliyay ilaa dhowr boqol oo qof. qofkii cusub oo ku soo biiray teamkeena marka uu horeysa oo is diiwaan geliyo qofka waxa lagu daraa gurubyada kala duwan ee WhatsApp-ka marka xigana qofka waxa loo bilaabaa casharadii kala duwan iyo sidoo horumar uga gaari lahaa shirkaddan si uu lacag badan uga shaqeysan lahaa. sidoo kale isbuuc walba waxaan qabanaa dhowr sim oo kala duwan ayaan qabanaa oo lagu soo dhaweynaya ama wax lagu barayo dadka cusub ee shirkaddan ku cusub sida horumar ay uga gaari lahaayeen. simkaasna waxaa qabta dadka shirkaddan horumar ka gaaray ee isbuucii ka sameeyay 2,000 ama bishii ka sameeyay 2,000 ayaa qabta. isbuucba qof ayaan ka soo dooranaa dadkaas isbuucba qof ayaa qabta. haddaba haddii aad rabtid inaad shirkaddan ku soo biirto oo iska diiwaan gelisid waxaad nagala soo xiriiri kartaa WhatsApp-ka kaaga muuqda shaashada sidoo kale wixii macluumaad dheeri waxaad ka heli kartaa qaybta description-ka ee video ayaad ka heli kartaa. qof kastana qofka uu ka soo horeeyo uu ka fursad badan yahay uuna ka nasiib badan yahay. muuqaalkeena maanta intaas inoo ogyahay ugu dambeyn waxaa kaa codsanaynaa inaad channelka subscribe noo saarto sidoo kale muuqaalka aad like noo saarto dhammaantiin waa mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.